السلام عليكم. فيروس كشينا كتلاعي كورونا. In China, health officials have announced they expect to see the coronavirus outbreak intensify. China's capital has announced that it's cancelling all major public events for Lunar New Year as the country tries to stop the spread of a new virus. فيروس التهاب رئوي ناشئ في مدينة ووخان وسط الصين يزعج استعدادات الصينيين لاستقبال السنة القمرية الجديدة. dhammaan garoomada diyaaradaha kala duwan ee caalamka waxaa taagan kumanaan shaqaale oo sugaya rakaabka ka imaanaya Shiinaha si looga hortago faafidda fayruskan dilaaga ah ee ka dilaacay dalka Shiinaha. Waxaana yar dadka Shiinaha u safraya, taasoo u muuqata in Shiinuhu guudun saaran yahay. Ilaa hadda 425 ayaa u dhintay fayruskan halista ee bartamaha dalka Shiinaha ka dilaacay. waxaa la diiwaan geliyay kumanaan qof oo jirkooda ku jira fayruskan. 4500 dad ka badan ayuu marayay shalay dadka sida tooska ah sida looga helay fayruskan. Cudurku wuxuu ka dilaacay gobolka Hubei bartamaha Shiinaha, gaar ahaan magaalada ugu weyn ee gobolka ee Wuhan, taasoo keentay in bandow lagu soo rogo magaalada iyo gobolka si guud ahaaneedba. Dadkana la amray inay xidhaan daaqadaha guryahana ay ka soo bixin. fayruskan Shiinaha ka dilaacay waa mid asalka xayawaanaad kale ka imaaday kadibna u sii gudbiyay bini'aadamka. Waa fayrus kooban xalqad borotiin ah, wuxuuna u egyahay xalaqada ku meegaaran qoraxda oo marka dabcan weyneeyaha lagu arko. Wuxuuna ku gudbaa dhinaca hawada, dheecaanka qofka ka soo baxaya, taabashada, waxaana ka dhalanaya qandho, dhibaato dhinaca neefsashada ah, qufac, xanuun dhinaca xabadka ah, ciriiri neefsashada ah, ilaa uu qofka geeriyoodo. 60 milyan oo qof ayaa ku go'doonsan loona ogolayn inay ka baxaan gobolka, waxaana ka mid ah arday wadamo badan kasoo kala jeeda oo ay ka mid yihiin arday Soomaaliya. wadamo badan oo caalamka ka mid ah ayuu gaadhay fayruskan, inkastoo hal qof laga diiwaan geliyay wadamada sida Jabaaniiska, Koonfurta Kuuriya, Vietnam, Singapore, Australia, Mareykanka, Thailand, Nepal, Faransiiska. Dhibaatada ugu daran ayaa waxa ay tahay in fayruskan marka uu qofka jirka galo uu 14 maalin ku jirayo, la ogaan karina inuu qofka qabo cudurkan, laakiin uu sii gudbin karo, lama ogaan karo walaalkiis uu gudbin karaa. waana arin soo keentay dad cudurka laga waayay dadkeen qabo gaarsiiyeen dad kale, maadaama aan ogaan karin cudurka ilaa 14 maalin ay kasoo wareegato marka uu qofka jirkiisa galo. isla markaana caalamka argagax iyo walaac bini'aadamka cudurro ka duwan kan xoolaha ayaa ku dhaca. xoolahana sidoo kale cudur iyo fayruusaad ka duwan ayaa ka bini'aadamka ayaa ku dhaca. fadliga Ilaahay iskuma gudbin karaan markay xaalado kooban laga reebo. qof bini'aadana cudur kuma ridan karo xoolaha kala duwan, laakiin waxaa jira noocyo gooniya oo hargabyada ka mid ah oo xooluhu dadka u gudbiyaan, sida hargabka shimbiraha ee ka dilaacay Koonfur Bari Aasiya, kii doofaarka ee ka dilaacay Mexico. inka la yaabka ayaa ah in haddii cudur ama fayrus ku dhaca xoolaha uu bini'aadamka u gudbo isu bedelayo ama noqonayo daacuun sida ay leeyihiin culimada caafimaadka. waxa uu yeelan marka uu galo jirka bini'aadamka awood kale adkaanaysana in daawo loo helo. hargabka xoolaha marka uu ku dhaco dadka wuxuu isu bedelaa fayrus halisa awood dheeraadana leh dadku ku hoobta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. channelkan Dareju fadlan subscribe saar, share na dheh.